السلام عليكم أخيارتا شرفت لك قلم وناكسن مالي وناكسن دهور وناكسن ميل والبا دنيا دك جوجتان إن شاء الله أنا waxaan ku eegi doonaa investmentigii aan sameynay wiigi hore kan waa wiigi labaad wiigi koowaad waa arkaysiin waa halkaas kan waa wiigi labaad marka coinanka iibsan waxaa kamid ah Ctsi iyo Celr iyo network laakiin inta ugu badan waxaan iibsaday aniga shakhsiyan Ctsi iyo Celr marka waxaan ku eegaynaa qiimahooda maanta iyo STX ayaga asna waa iibsaday kaas waxaa wiigaas wiigi ka horeeyay kaas wiigi ka horeeyay waa laakiin waxaan sameynaynaa hadda waxaan eegaynaa Ctsi iyo STX oo asna ah STX ayaan ku bilaabaynaa waxaan sameynaynaa STX saga meel kale ayaan geliyay saga group kale ayuu ku jira dhib ma lahan laakiin hadda waxaan eegaynaa Ctsi qiimaha hadda uu joogo waa kana hadda taariikhda marka waa taas qiimaha hadda uu joogo Ctsi qiimaha hadda uu joogo anaga maxaan ka rabnay 42% ayaan ka rabnay afartan iyo 5% ayaan ka haysanaa taas waa ilaahay mahadiis waxaan eegaynaa oo kale Celr ayaan eegaynaa asna Celr ayaan eegaynaa Celr waa soo koobiyeynay asagana qiimaha aan iibinayna soo ahay 40 ayaan ka rabnay afartan iyo 7% ayaan ka haysanaa alxamdulilah taas waa ilaahay mahadiis marka aniga waxaan sameeyey lacagaha markaan ka faa'iiday kan markaan faa'iido fiicanba ka helo faa'iidada waa ka bixiyaa mid kale ayaan kusii iibsadaa oo liistadii ugu jira marka hadda kan ayaan ku iibsaday LTO network waa minus waxaanan ku iibsanay 5% ayuu minus yahay 80 ayaan ku iibsanay marka waa eegaynaa asaga 80 asi waa minus marka insha Allah asaga wuu soo noqonayaa laakiin labadan faa'iidada way gaartay targetka wuu gaaray stop loss ayaan isaga xir haddii sii kacna alxamdulilah haddii sii kicina way iga gedmayaan waxaa kale oo asagana maaragtay noo soo haray waxaa noo soo haray STX wiigan haddana kuwa kale ayaa iibsanaynaa insha Allah ayagana waan diyaarinayaa digibad STX blockstack yes STX waa kana STX 35 ayaan ka rabnay mar hore ayuuba gaaraba faa'iidadii wuxuu marayaa 23% ayuu marayaa STX waa kana 23% ayuu marayaa marka muhiimadda waxaa waaye inaad ka soo raacdo meel hoose inaad ka soo raacdo ayaa muhiim ah taas ayaa ugu muhiimsan la socda anaga 35% ayaan ka rabnay targetkiina 52% ayuu noo gaaray waa ilaahay mahadiis alxamdulilah kuwan waa kuwa hor aan isaga gaday kuwan waa wiig ka horeeyay laakiin STX ayaa muhiim ahay STX waan targetka wuu gaaray kuwii kalena targetka way gaareen marka alxamdulilah waxaa kaloo noo haray labadan ayaa noo haray insha Allah labadan ayaa noo haray quantum iyo waxaa noo haray iyo mid kale ayaa noo haray marka insha Allah kuwa kalena waan soo diyaariyey laakiin kuwan ayaa muhiim ahayd faa'iidada inay gaarto wiig ayaan u sameyn doonaa insha Allah kuwa wiiga hore faa'iido waa ka helnay faa'iidii khasaare waxay noo noqotay alxamdulilah kuwan wiigan soo socdan insha Allah iyagana waxaan rajeynaynaa
inaan ka faa'iidno ilaahay idinkiis oo aan faa'iido fiican ka helno week saarnaa week waa kana. marka hadda waxaa noo haray dadkii iibsaday, waxaa noo haray LTO anchor maan iibsanin like wokacay anchor faraan ka qaadaynaa. waxaa noo haray quantum iyo QLC iyo LTO network. anchor wokacay anchor ma taabanayno, faraan ka qaadaynaa iyo labadaas saddexdan ayaa noo hartay. kan marka waa iska daynaynaa, kaas aad ayuu u kacay. insha allah videogan intaasaan isaga kusoo koobaynaa. stop losskana waa muhiim mar walba aa faa'iido heshane. faa'iidada haddii aad kula fiicnaato waxa faa'iidada keliya kala bax ee meel kala geysa faa'iidada. ha kusii daynin faa'iidada. haddii aad kusii daysa ma fahmaysa waxaa faa'iidii waxaa khasaartay. marka mar walba faa'iidada kala bax. marka insha allah intaasaan isaga kusoo koobaynaa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.